in wax la barto waxa ay qaadataa waqti dheer iyadoo u baahan dadaal iyo dulqaad. qorshaynta iyo u diyaargarowga inaad wax barato waa mid aan mararka qaar noqon sidaad u baahan tahay inaad u hesho. ardaydii horeento waxay haysteen ammaan, waxay haysteen waxbarasho lacag la'aan ah, waxay haysteen qalab iyo imkaaniyaad tasiilaad u fududaynayo iskuulka. marka aad ku nooshahay dhul colaadaha iyo hadalhaynta dagaaladu ay ku badan yihiin sida Soomaaliya, isku hawlidda carruurta oo goor hore wax la baro waa mid dhib badan leh. hase ahaatee ay ka sii xanuun iyo walwal badan tahay inuusan jirin dugsi ama goob waxbarasho oo dhammaystiran oo carruurta xilliga ay yar yihiin wax lagu baro. aniga oo yar wax bartay soo waxaynin oo shaqo iyo wax kale aan ku mashquulsanayn waxbarashadii bis ku mashquulsanayn. kadib 25 sannadood oo dagaal sokeeye lagu jiray waxaa gabi ahaan burburay nidaamkii waxbarashada ee Soomaaliya lahayd. heerka isdiiwaangelinta goobaha waxbarashada gaar ahaan iskuulada waxay ka mid noqdeen kuwa ugu hooseeya dunida oo dhan. kaliya 4 ka mid ah 10 carruur oo Soomaali ah ayaa hadda dugsiyada waxbarashada dhigta oo taga, waxaana si gaar ah loo tilmaamaa in saameynta ugu xun ay ku yeelatay gabdhaha. deegaanada aysan weli gaarin nidaamka dawladnimada ee Soomaaliya haatan ka socota waa meelaha ugu hooseeya xaddiga isqorista dugsiyada waxbarashada dalka Soomaaliya. ardaydii horeento waxay haysteen ammaan, waxay haysteen waxbarasho lacag la'aan ah, waxay haysteen qalab iyo imkaaniyaad tasiilaad u fududaynayo iskuulka. waxyaabahaas oo dhan ay haysteen. marka ardaydan hadda waxa waaye khalkhal badan markay guriga ka soo baxayaan waxay la kulmayaan iyo mushkilad iyo waaqac iyo waxyaabo badan khalkhal badan ku jiro. hogaamiyaasha siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa bilaabay olole si loo helo in ka badan 1 milyan oo carruur ah kuwaas oo taga si ay wax u dhigtaan dugsiyada wax lagu barto. hal abuurka mashruucii gogoldhigiisu ahaa aada dugsiyada ayaa si siman uga bilowday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo magaalooyinka ugu waaweyn ee maamulada Somaliland iyo Puntland. iskuulada la dhisay waxa weeyaan 1 milyan kaaba loogu talagalay. waxay ahayd 500 oo South Central-ka inta koonfurta, 200 oo Puntland iyo 300 oo Somaliland. barnaamijku wuxuu ahaa Soomaaliya dhan oo sidaas u kala socon. hadalku haddii aan nahay South Central-ka sida runta ah Somaliland in badan baa ka hergashay nidaamka ay u sameeyeen. Puntlandna waxbaa ka hergalay iyagoo ay iska deganayeen in badan bay deganaansho haysteen. heerka dhaqaalaha maamulada Puntland iyo Somaliland waxa uu ka dhigay kuwa iyagu sii haya hirgelinta nidaamka wasaaradaha waxbarashada ee ka jira maamuladaasi. labada ismaamul goboleed ee Puntland iyo Somaliland ayaa ka sameeyay waxoogaa faa'iidooyin ah si dhaqaajinta iyo hirgelinta heerka isdiiwaangelinta iyo tagista dugsiyada waxbarashada. Soomaaliya ayaa hadda ku howlan arrimaha dhadiga ee xasaasiga ah iyadoo sameynaysa siyaasad waxbarasho oo heer qaran ah taas oo waafaqsan heerka dunida. dejinta siyaasadda heerka qaran ee waxbarashada ayaa la mid noqonaysa tii qayaxaysa heshiisyada xuquuqda carruurta iyo dhammaan noocyada takoorka ah ee lagu hayo dumarka. South Central-ka waxa ugu caqabada ugu weyn naga heshay waxa weeyaan in budgetkii uu si fiican u socon. UNICEF waxay ballan qaaday inay macallimiin la qaato 1200 oo macallin, 1200 macallin $100 bishii macallinkii la siiyo. $100 kuma filmo. madaxweynihii Xasan Sheekh Maxamuud waxa iyo maalintii shirweynaha tacliinta la qabtay waxaa lagu ballan qaaday in 100 ay xukuumaddu ugu darto. sida runta 100kii waa la bixin waayay. iyadoo sidaa ay jirto ayaa haddana waxaa meel martay sharciyadda ujeedo ahaan loogu talagalay danaha waxbarasho ee gabdhaha iyo kor u qaadidda kobcinta heerka tarbiyada carruurnimadooda hore.
barnaamijyada horumarinta carruurnimada xilliga hore ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo waalidiinta iyo ururada xanaanada carruurta iyo guryaha. sidoo kale horumarinta xarumaha carruurta 5 sano ka hooseeya ayaa ahaa kuwo kale oo qayb ka ah nidaamka gaarsiinta qorshahaasi. ma jirto ilaa haatan wasaaradda waxbarasho oo si dhammaystiran gacanta ugu haysa nidaamka waxbarashada dalka, waxaana inta badan jira dhibaatooyin ay kala kulmaan ardayda manaahiijta kala duwan oo ay wax ku bartaan. waxaa Soomaaliya laga dhigaa manaahiij kala duwan sida manhajka Masar, Kenya, Sacuudi Arabiya, Ciraaq, Kuwait, Imaaraadka Carabta, kuwaasoo in badan u keena ardayda marka ay weynaadaan xilliga waxbarashada xitaa inay wax badan kala saari waayaan nidaamka waxbarasho, taariikh iyo mid mujtamac ee dalku u leeyahay. nidaamka waxbarashada ayaa ka kooban 2 sano oo ah heerka tarbiyada carruurnimada hore, 8 sanadood oo waxbarashada aasaasiga ah, 4 sano oo waxbarashada dugsiga sare iyo 4 sano oo heer jaamacadeed ah. يعني إنسان وحي إسوافقسنين waxaa laga yaabaa arday class ku fadhisa oo 50 arday ah in ardayba uu wato fikir gooni ah meel gooni ah wax laga soo baray macalinka wax baray laftigiisa jaamacadaha soo diyaariya kala duwan marka ninba si wax loogu soo sheegay. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay aqoonsatay habka waxbarashada dadban, tan farsamo iyo xirfadeed sida qaybaha ugu waaweyn ee la jaan qaadi kara nidaamka heerka waxbarashada gobolka. manhajka aan hadda wax ku dhigno ama dugsiyada dhanba ay ku dhigaan waa manhaj ku meel gaar ah. sidaan ognahay manhaj waxaa sameeya qaranaa sameeya muddadii yani maaragtay maxay ahayd waxaa la soo maray dowladda hore say u burburtana manhajyada wax lagu dhigayo waxay aaminaysa ku meel gaar ah. qolo walba yani maaragtay waxay meel ka qaadanaysa manhajka, qolo khaliijka ka qaadata, qolo yani maaragtay afrikaanta kale ka qaadata, qolo yani maaragtay maxaa la yiraahdaa ayadu wax yani sameeysa oo ayadu hindista intaasba way lahaayeen. marka hadda manhaj waxaa jira ku meel gaar ah oo daladuhuna ay sameeyeen, wasaaradda waxbarashaduna yani maaragtay maxay ahayd ay ansixisay. waxbarashada heerka dugsiyada sare waxaa la siiyaa ardayda da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 18 sanadood, kuwaas oo qaata muddo 4 sano ah, imtixaanka kadibna hela warqadda shahaadada dugsiga sare taasoo muujisa nidaamka tijaabo ee waxbarashada. marka in base-ka haddii wax laga soo aasaaso ardayga waxaa arkaysaa iskuulkan carabiga kusoo marka hore kusoo barbaaray dugsi sare markii English la yiraahdo ardaygii caqabada uga imaanayso. hadda English iskuulada badan iskuulaadka maadooyinkan waxay ku baxaan marka weli wax badan ah khaldan. saas ay tahay manhaj kasta la hadartan oo la soo saaray laftirkiisa macallimiinta waxay nooga sheegaan akhdaa aad u tiro badan. waa casharka uu bata hal yareeyo waa uu yar yahay xogaha lagu daro gar laakiin akhdaa ama ha ahaata madbici ama ha ahaata mid cilmiyan ah ayaa aad u badan. marka doorkaas aad weli wax badan ka dhaman laakiin dadaalka la sameeyay aad ay ugu mahadsan yihiin. luqadda Ingiriiska ayaa mid kaliya ay ku baxaan maadooyinkan ay bartaan ardayda inta ugu badan, waxayna hormuud u tahay nidaamka gudbinta dugsiyada sare marka laga reebo maadooyinka afka Soomaaliga, Carabiga iyo casharada culuumta Islaamka. waxbarashada heerka jaamacadaha ee dalka Soomaaliya ayaa ah mid fursado loo siiyo ardayda soo dhamaysata heerka waxbarashada dugsiyada sare, waxaana ay helaan mid heerka jaamacadaha ah. waxbarashada heerka jaamacadaha dalka ayaa ah nooc ka mid ah fursadaha waxbarasho ay hay'adaha waxbarashadu siiyaan ardayda si ay uga faa'iideystaan iyagoo hela heerka shahaadada sida kuliyadaha tababarka macallimiinta iyo culuumta bulshada. qaarkood waxay ku dhex dhigtaan private-ka iskuulkii in la yidhaahdo dambagelin dambe amba qayb ay kula dhex socdaan oo lagu shaqeeyo qayb kalaasyada qaarkood sida Sheekh Xasan Farsamo oo kale iyo maxaan u jeedaa Yaasiin Cusmaan iyo iskuulo badan oo ku yaala magaalada. fursadaha barashada farsamooyinka gacanta iyo heerka tababarada ayaa noqotay mid inta badan fursado loo siiyo ardayda dhigata dugsiyada hoose iyo kan dhexe si ay uga faa'iideystaan iyana. ujeedada ahmiyadda loo siiyo horumarinta iyo barashada farsamooyinka xirfadaha iyo fursadaha tababarka ayaa inay noqoto waxbarasho u jahaysa ardayda Soomaaliyeed meel wanaagsan si ay u noqdaan kuwa wax soo saar leh, kuwaas oo ay ka faa'iideystaan dhexdooda iyo waliba dadka kale. waxay xitaa waxbarashada farsamada iyo tababarka ay bixisaa helista baahiyaadka la xiriira barashada ku habboon dhinacyada warshadaha, ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya. mid kale waxay isku dayaysaa inay yareyso sinaan la'aanta
iyadoo sidoo kale fursado tababaro oo siman u samaynaysa ardayda nafsadooda kuwaas oo tababaro markaa hela waxaa sidoo kale ka faa'iidaysta tababarada carruurta yaryar iyo weliba haweenka nidaamka waxbarashada gacanta. waa runtaa waddankan markii hore dowladdii centralkii hore waxaa jiri jirtay meelo badan oo farsamada gacanta oo institute la yidhaahdo oo loogu talagalay oo gobol walba ku yaalay. waqtigii burburkii wixii way kala daateen. waxaa markaa loo qorshaysan mar program jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo UNICEF iyo lasoo hor qaaday in 18 regionba mid kasta laga sameeyo institute kale oo farsamada gacanta. dugsiyada lagu barto quraanka iyo diinta islaamka ayaa weli ka ah dalka Soomaaliya kuwa ka sii jira waxayna yihiin meelaha aasaaska u ah barashada culuumta islaamka dalka Soomaaliya waxaana si xoog badan loogu bixiyaa goobahaasi barashada daraasaadka islaamka waana goobaha waxbarasho ee carruurta Soomaaliyeed ka soo muuqdaan si loo helo buuxinta kaalinta diinta iyo bulshada ee dalka. innaga quraanku iyo diintu waa manhaj inoo yimid oo ilaahay nasiibkeena ka dhigay inay badda inooga soo talowdo dabeedna dadkii waday dadkii deegaanka ah ay u yimaadeen ay wixii geliyeen induus baa leeyahay af ingiriisi yani geliyeen oo tuseen dabeedna ay jeclaadeen wanaageedii oo ay qaateen. nidaamka barashada culuumta islaamka gaar ahaan quraanka inta badan waa habka kaliya ee la heli karo marka loo eego Soomaaliya qaabkeeda waxbarasho ee hoose kuwaas oo ay heli karaan dadka ku nool goobaha fog sida dadka reer guuraaga ah marka la barbar dhigo meelaha magaalooyinka ah ee Soomaalidu ay ku nool yihiin. celcelistir koob ahaan waxaa la sheegay 40% in ardaydu ay wax ka barato dugsiyada quraanka dalka Soomaaliya inay yihiin gabdho si taas wax looga bedelo gaar ahaan dhaliilahaasi inay yar yihiin gabdhaha taga goobaha waxbarashada diinta. dowladda Soomaaliya waxay aasaastay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka. nidaamka waxbarashada quraanka hadda waa mid loo dejiyay inay maamusho wasaaradda diinta iyo waqaafta ee dowladda Soomaaliya. waxaa loo qoran horta manhajka ama nidaamka dawliga aan sameynay ku qornay inuu iskuulo ay jiro pre schools la yiraahdo pre education oo ah 2 sano ka hor ardaygu 6 jir buu ku galaa inuu 4 jir marka waxa la yiraahdo kindergarten-ka amba iskuulka carruurta 2 sanadood inuu ku sii jiro si uu quraanka iyo dadka carruurta sida loola macaamilo iyo bulshada sida iskuulka loo diyaar gareeyo pre-schoolska inuu la qabsado markuu isagoo 6 jirna uu la bilaabi karo maaragtay iskuulada. sidoo kale goobaha waxbarashada heerka sare ee dalka Soomaaliya hadda ka jira waa kuwa si gaar ah loo leeyahay oo ma hoos tagaan nidaamyada waxbarasho ee dowladda Soomaaliya. marka aad si kale ugu koorgasho dalka waxa ku yaala tiro jaamacado waxbarasho ah oo ay arday badan dhigtaan waxaana jaamacadahaasi ay bixiyaan maadooyinka kala duwan waxaana loo maraa habab kala duwan barashadooda. kuwani waa dugsiyada iyo jaamacadaha kamid ah kuwa gaarka loo leeyahay ee dalka ku yaala waxayna rajo siiyaan carruurta Soomaaliyeed. hase ahaatee waxa weli muuqata dhibaatooyin dhowr ah mana muuqato heerka waxbarasho ee loo baahnaa in la helo sidii la rabay. anaga tusaale ahaan jaamacadeenu kale waxaan leenahay remedial classes oo yani aan loogu talagelin jaamacadda inuu ka baxo laakiin waxyaabaha remedial classes waa classes lagu celiyo ardayga maada la siiyo accounting oo kale tan siinaa subaxii in markaan aragno inuusan la soo qabsan karin oo yani qaabkan ma qaab kale uu sito ama uusan ba u soo dhaweyn inaan sameeyno remedial classes oo ardayda lacagna aan looga qaadin si yani aan uga dhigno group wada socda oo wax loo wada sheegi karo. way waxaan rabnaa arday kasto isku heera semester 1 2 3 inay isla socon karaan ardaydu wax isla fahmi karaan kuwa isku kuliyada departmentiga wax kala barta. aragti ahaan waa mid si daahfuran loo qabo habka hadda loo sheegayo in waxay u bartaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo waliba carruurta. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ma ahan mid si buuxda gacanta ugu haysa tayada iyo waliba la socodka heerka waxbarasho iyo guud ahaan heerkii loo baahnaa ee goor hore la dejiyay. waxaa la aaminsan yahay inay meesha ka maqan tahay nidaamka shuruucda ee aasaaska u noqon lahaa tayeynta heerka waxbarasho ee dalka Soomaaliya. iyadana iskuulaadkii waxay ka bilaawdeen in waxbarashada ardayda lagu bilaabo da'da 6 sano ama 7 sano si ardaygu isagoo 18 sano jira uga baxa dugsi sare
jaamacadda uga baxo 22 sano marka qofku markaa wuxuu helayaa waqti cimrigiisa ah isagoo waxna soo bartay waxna qabsan karaa laakiin da'weyn waxaad moodaa inay xoogaa markastaba ay culays ku tahay qofka intaa waxaa sii dheer ganacsatada sida gaarka u maamusha ama u leh goobaha waxbarasho waxa uu mid kastaahi ku hagaa nidaamka waxbarasho gaarka loo leeyahay isticmaalka manhaj ka baxsan tii dalka Soomaaliya waxaana lagu dhigaa dugsiyo kala duwan manhaj kala gedisan manhajyo badan magaalada ka jiro sidaas darteed manhajka Soomaaliga hadda wax ku bartaa sida manhaj kale oo ajaanibtu wax ku mataraay sababtoo ah dalkaaga iyo dadkaaga ma baranaysid adhow dad kale ayaa baranaya dadkaaga kale adhow kuma anfacaya si kasta xaaladahan ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa xilligan uu wajahayo dalka Soomaaliya waxay galaysaa dib u dhis dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga iyadoo dalku uu dib uga soo kabanayo dagaaladu sakeeyay muddada dhowr iyo 20 sano ka soconaya dalka kuwaas oo meesha ka saaray wax badan oo nolosha iyo waliba waxbarashada Soomaaliya